kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta oo aynu ku soo qaadan doono kala duwanaanshaha sanadka islaamka iyo sanadka miilaadiga. inta aanan barnaamijka u guda gelin, haddii aad ku cusub tahay channelkan, fadlan subscribe-ka ambaleelka yarna ku dhufo si warbixinada aan maalin walba u soo gelino aad si fudud ay kuugu soo gaadho. sidoo kale barnaamijkan haddii uu ku qanciyo like saar, sidoo kalena share sii dheh. waad ku mahadsan tahay. ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta iyo kala duwanaanshaha labadaasi sano ee aan soo sheegnay. aanu ku bilowna sanadka hijriyada. dhammaan islaamka oo dhan waxa ay tirsadaan sanadka hijriyada, waanay ku faanaan, wuxuuna la jaan qaaday waa dayaxa. waxaanu sanadka qoraxda ee la xisaabsado kaga duwan yahay 11 maalmood, iyadoo bilaha qaar ay ku dhammaadaan 29 halka qaarna ay ku dhammaadaan 30 maalmood. allaha ka raali ahaaday khaliifkii muuminiinta ee Cumar bin Khadaab ayaa jideeyay sanadka islaamka, iyadoo nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu Madiina ka baxay Makana uu galay uu noqday sanadka uu ku shaqeynayay, iyadoo 12 Rabiicul Awwal uu ka soo bilaabantay kuna beegnayd 24 Sebtembar 622 miilaadiga. sanadkan hijrigu amba hijriyadu hadba qofku siduu u yaqaano waxa uu raacaa amba uu raacsan yahay dayaxa, oo alle ayaa quraankiisa inoogu sheegay suuratu Tawba, iyadoo alle quraankiisa uu ku leeyahay inna ciddata shuhuur bilaha tiradoodu cinda Allahi rabbi agtiisa 12 shahran waa 12 bilood fi kitaabillahi, sida ilaahay kitaabkiisana oo kana ku qoran yahay loox mahfuudka ah. yawma khalaqa as-samaawaati wal ard eriyadu maalinku abuuray loox mahfuudka sidaas uu ku sii qoray. minha 4 xurum, 4 bilood oo xurmale baa kamida. ذلك الدين القيم دين تسدى الله قلق ما يتتوسنوي فلا تظلموا فيهن أنفسكم نفيه لمالها كقدعنا بلها دحدودة وهدن بابنا وحال يدين وقلينها قيساننا تنبقوا سيويها. afartaasi bilood ee xurmada leh ayaa waxa ay kala yihiin bisha 7aad oo ah Rajab, bisha 11aad oo ah Dulqacda, bisha 12aad oo ah Dulxija iyo bisha 1aad oo ah Muharram. haddaba haddii aynu eegno 12 bilood iyo bil waliba bal sababtii ay ku baxday iyo macnaha ay u taagan tahay, aynu barnaamijka ku sii dhawaana daawadaya. bisha 1aad oo ah bisha 1aad ee sanadka islaamka oo dhan waa Muharram, ayaa ah bil xurmaysan ama dhowrsan, waana bil ayna carabtu dagaalami jirin, oo ah bil ay aad u qadarin jireen dagaalka iyo waxyaabaha badan ay iska ilaalin jireen. bisha Safar waa bisha 2aad ee sanadka islaamka, waana bil tibaaxisa marka ay carabi bisha xurmada leh ka baxaan ay isku duuli jireen, iyagoo isticmaali jiray qaaciidadoodii ahayd idaa lam tamli tudlam, oo macnaheedu yahay haddii aanad cid ku tuman oo aanad duudsin, adiga ayaa lagugu soo maqan yahay. waxaana qabiilka ugu awooda badan amba awooda sheegtaa noqon jiray mid xaalufeeya hantida iyo barwaaqada, waana sababta ay Safar ku baxday bishani Safar. isla ereyga Safar haddii aynu eegno waa marag ama meel lagu kala guuray, si kale waa madhnaan ama kala tag lagu kala yaacay goobtaas. bisha Rabiicul Awwal waa bisha 3aad ee sanadka islaamka. bishani waa bisha ugu hooran yahay ama xilliga roobku uu di'i jiray, iyada oo lagu macneeyay in xilligaas loogu magac daray bishan. bisha Rabiicul Thani waa bisha 4aad ee sanadka islaamka. isla roobkii bisha hore bilowday ayuunbaa sii socon jiray, waana 2 bilood oo la isku xidhiiriyo amba la iskugu tiriyo marka loo eego min bilowga roobka bisha hore soo bilowday iyo bishan oo uu roobku sii socdo. waa bishan Rabiicul Thani oo ah bisha 4aad ee sanadka islaamka. bisha Jamadul Awwal waa bisha 5aad ee sanadka islaamka. bishan oo islaamka hortii la odhan jiray Jamada amba loo yaqaan Khamsa, waana bil ku dhici jirtay xilliyada markaasi jiida carbeed oo dayro dhaafku hayo. ereyga uu ka soo jeedo ayaa ah Jamada, macnaheeduna waa marka ay biyuhu barafoobaan. bisha Jamadul Thani waa bil lagu xidhiiriyo bisha 5aad ee islaamka, sababtoo ah waa bil ay isku astaamo iyo waqti isku mid ah ay yihiin. bisha Rajab waa bisha 7aad ee sanadka islaamka. bishani waxa ay ku jirtaa 4 bilood ee muxtarimka ah amba xurmada ah, waana bil macno badan leh. tusaale
waa inay bishani ahayd bil markaasi lagu xisaabtami jiray shahru rajab, iyo in waranka caaradiisa iyo samaydiisa kala saari jireen meelna la dhigi jiray isagoo oo markaasi diyaarsan oo aan wax dagaala lagu geli jirin, waana bisha loogu magacdaray rajab. bisha shabcaan waa bisha 8aad ee sanadka islaamka. magaca shabcaanna waxa uu ku baxay kala hayaamkii qabiilada carbeed, oo sida aan rajab kusoo sheegnay waa bishii 7aad oo ah bil waranka la dhigi jiray waa rajabe. waxaana kale oo bishan shabcaan ay tahay bil biyo raadis badan oo qabiilada carbeed samayn jireen, iyaga oo markaasi hadba halka ay biyo ugu dhow ay ka arki jireen ay u doonan jireen, calaashaan safar ay ugu bixi jireen oo ay biyo raadis ahaayeen kulaylo markaasi iyo dagaalada halkaasi ka dhacaya darteed. bisha ramadaan waa bisha 9aad ee sanadka islaamka. bishani waa bil barakeysan, alle ayaa bilaha kale ka doortay, waana bil dhammaanteed aynu wada naqaano soonkeeda, ahna bishii qur-aanku uu soo degay. iyadoo bishani ay wada tahay bil barakeysan, haddana magaca ramadaan ayaa baxay waqtigii jaahiliyada, sababtoo cadceedda aad bay u kululayd, dhulkuna wuxuu noqon jiray homos iyo raran kulul. heer kuleylka waqtigaasi jiray loogu magacdaray in dhagxaanta dhulka yaala ay shiilmi jireen dhambiilo oo kale ay noqon jireen kuleylka jira darteed. allana qur-aankiisa waa bisha uu soo dejiyey, waana bisha uu ka doortay dhammaan bilaha kale ee sanadka islaamka. bisha shuwaal ama shawaal waa bisha 10aad ee sanadka islaamka. bishani waa bisha farxadda, sababtoo ah waa bil ay ku jirto maalinta ciidul fitrida, iyadoo ay kusii dhex jirto 6 cisho ee soonka shuwaal. magaca shuwaalna waxa uu ka yimid waa halaha awrka baalqabka markaas u tu'i jireen marka ay haluhu rimaan dhaqayoobi jireen, caanaha neefka shaqayna ay ka gabi jireen carabtii hore, iyagoo odhan jiray tashawalatu ibli, ama geeli waa uu dhaqayoobay ama waa uu caana gabay. dulqacda bisha dulqacda waa bisha 11aad ee sanadka islaamka. waxa ay ka mid tahay 4 bilood ee xurmada leh, iyada oo sidaa ay tahay waxa uu magacani uu ku yimid waa qucuuda amba qucuud, oo macnaheedu yahay fadhiga, waana sababta ay ugu bixiyeen ahayd bil safarada iyo dagaalada ay ka nasan jireen, halka xasilooni iyo deganaashana ay markaasi ka dareemi jireen. bisha dulxija waa bisha 12aad ee sanadka islaamka. waxa aad ka garataa bishan magaca carab oo dhan ayaa iskugu iman jiray xajka, iyaga oo kacbada soo xaji jiray, waana bisha ciidul carafo oo 10keeda ayaa la ciidaa. waxaynu ognahay in caalamka oo dhan laga adeegsado sooyaalka miilaadiga, inagoo og in ereyga miilaadi af carabi yahay. waxa u taqaana carabta oo tiraahdo waa miilaadi, sababtoo ah dhalashadii nebi ciise calayhi salaam ayaa laga soo bilaabay sanadkan. reer galbeedka ama kiristanka oo dhanna waxay ugu yidhaahdaan Gregory, looguna magacdaray baadarigii Roomaaniga ah ee markaasi Gregorentini la oran jiray. reer galbeedka iyo kiristanka oo dhanna waxa u yaqaanaan amba ugu yeedhaan waa Gregory, looguna magacdaray baadarigii Roomaaniga ahaa ee Gregorioskii 13aad oo tirsigaas waxyaabo badan markaasi kusoo kordhiyay isagu. bartamihii qarnigii 6aad, iyadoo la tirsanayo tirsiga Roomaanka, ayaa baadari Armeni ah oo la odhan jiray Dionysios wuu ku baaqay in dhalashada sanadka laga bilaabo dhalashadii nebigeeni ciise calayhi salaatu wasalaam, waanuu ku guulaystay baadarigaasi, waxaana tirsigaasi u noqday 2 waaxood, waa ciise hortii iyo ciise dabadii. haddaba waxaynu eegaynaa bal bilahan 12 ah ee ay samaysteen, bal iyo bil walba macnaha ay u taagan tahay inaad si fiican noola dhuuxdo insha allah. maadaama Roomaanka ay u samaystay bilaha iyo sanad kastaba, marnaba ha uga fadhiyin in uu shirki ka dhammaado, sababtoo ah ciid waliba camilkeed ayay leedahay. bisha loo yaqaan January oo ay ku tiriyaan waa bisha 1aad, waxay ugu magacdareen ilaaha koowaad ee albaabada iyo xilliyada ee Janus. February oo ay ugu tiriyaan bisha 2aad, waxay ugu magacdareen istaahirinta, sababtoo ah bishaasi ereyga ay isticmaaleen oo ah Febra ama Febrasios,
lana isticmaali jiray roomaankii hore, waanay markaasi baasaysan jireen oo beeruhuna uma bixi jirin iyagoo caabudi jiray wixii ay caabudi jireen cibaado markaasi shikri ah, cibaado shikri ku jiro oo nooc walba leh. bisha ay u tiriyaan bisha saddexaad oo ah March, bishani waxay ugu magac dareen ilaaha dagaalka, waxayna odhan jireen Maristios, aadna way u caabudi jireen. sababta ugu weyna waa ay dagaal badnaayeen. sanadkii roomaankuna bishan ayuu ku bilaaban jiray, waa roomaankii hore. bisha ay u tiriyaan Abril oo ah bisha afraad, bishani waxay ka soo jeedaa ereyga Afriil loona yaqaano guga, waana xilliga ay arkaan ubaxyada xilliga guga markaasi afka kala fura. bisha ay yidhaahdaan waa bisha shanaad waa Meeye, waxay caabudi jireen waxay u yaqaaneen ilaaha Maaya, iyagoo aaminsanaa inay iyadu dhashay ilaah Mercury, uguna magac dareen meeraha markaasi bah cadceedda ee ku tirsan qoraxda ugu dhow. bisha June oo ay u tiriyaan bisha lixaad ee sanadkan ay xisaabsanayaan, bishani waxa ay ka soo jeedaa ereyga juniors, markaasi una yaqaanaan dhalinyaro. sababta loogu magac darayna waa xilli ay dabaaldegi jireen dhalinyaradii. dabaaldegaasina midka aynu isla ognahay maaha, waase mid fasahaad oo dhan ku hoos lamaan yahay dabaaldegaasi. bisha toddobaad ee July ee ay xisaabsadaan, nin ay ku sheegeen boqor alle ayaa boqore ayaa ay ugu magac dareen bishan, waxaana la odhan jiray Julian Caesar. bisha sideedaad ee Agosti sidoo kale bishan waxay ugu magac dareen nin la odhan jiray Augustus ama Octavius loona yaqaanay, waana wiil uu soo korsaday ninkii loogu magac daray July ee Julian Caesar. bisha sagaalaad ee September ay xisaabsadaan, bishani waxay ka soo jeedaa ereyga Septa lana macno ah toddoba, lambarka toddobaad xisaabtaas ama tirsiga Roomaanka. bisha tobnaad ee xisaabsadaan ee October sidoo kale bishan waxay ka soo jeedaa ereyga Octa, iyaduna ah 8, isla Roomaanka ayaana xisaabsan jiray bishaasi. bisha ay xisaabsadaan ee 11aad ee November, iyaduna ereyga Nova ayay ka soo jeedaa, lana macno ah nambarka 9. bisha 12aad ee xisaabsadaan waa December, bishani waxa ay ka timid ereyga Desa, nambar ahaan ah nambarka 10. isla hawlihii Roomaanka ayaanu lambarkaasi ama bishaasi ay ku magac dareen. walabisuubu ilaahay waxa ay nagaayeen fi kahfihim godkooda 300 siniin, 300 sannadood ayay la soo jiifeen oo godka ay jiifeen. wadaaduu 9 sagaalna way ku darsadeen 309 sano. tartiibka loo kala sheegay ma noqon kartaa bay leeyihiin culimadu, waa laga yaabaa inay noqon karto 300 sannadood marka la eego shamsiga, tirada isku buuxda 360ka. marka taqamariga la eegana 300 sannadood 9 sano ka soo baxaya, marka 900 iyo 3 waxa ka soo baxaya baan leeyahay 309 sano ayay noqonaysaa dayaxa marka la eego. intaas halka jiifay habka ilaahay uu ku hayay, markaana uu soo toosiyay, markii dambena uu ku celiyay. waka alla inoo kala dhigdhigay ee sida macnaha weyn ee aan waliba mugdigu ku jirinna aynu Qur'aanka Kariimka ah aynu si fiican u sheekhu inoogu soo gudbiyay Sheekh Maxamed Cumar Dirir raali ilaahay ka ahaade. bal haddii aynu eegno sanadka qoraxda iyadoo loo tirinayo 300 sano ahayd, halka sanadkeena dayaxana haddii loo tiriyana uu dheeraanayo 9 sano. bal eeg dadkii sanadka qoraxda adeegsan jiray waxa ka qarsoonaa waa 300 sano. qur-aanku se marka uu soo degayay waxa la adeegsanayay waa sanadka dayaxa. 300 sano waxa ku biiraya 9 sano. alla wakaa sidaa u kala dhigdhigay ee 309 sano uu ku biiray, sidaas uu kala qaaday ilaahay. bal tusaalahan ilaa xisaabtan dabadeed 9 sano halkaas ayaynu ka soo saaranaa. mar haddii sanad walba ay dheer yihiin 11 maalmood, haddii 11 maalmood aynu ku dhufano 300 sano, jawaabtii noo soo baxaysa waa 3300 oo maalmood. haddii 3300 oo maalmood aynu u qaybno 12 biloodna,
jawaabta iyadana inoo soo baxaysa waa 275 bilood. haddii 275 bilood aynu u qaybno 30 maalmoodna jawaabta inoo soo baxaysa waa 9 sano. haddaba iyada oo hijriyada iyo miilaadigaba aad soo kala garatay, ka runta iyo ka khiyaaliga ahba aad si fiican u kala hayso, ma ogtahay daawade in tirsiga hijriyada waxa kaliya ee maanta nooleeya ay tahay bisha Ramadaan iyo bisha Dulxija? waana labada dabar ee kaliya ee maanta aynu odhan karno wayba sii baajinayaan inay dunida aynu joogno ay kasii tirsanaadaan. daawadase ma igu raacsan tahay in dalka kaliya ee isticmaala waa sanadkan hijriyada uu yahay dalka Sacuudiga, iyadoo aynu odhan karnaba dadkii islaamku waa uu iska ilaabay in yar mooyaane oo xisaabta uguma jirto inay ku xisaabtamaan sanadkooda islaamiga ee hijriyada. dhulkeena Soomaalida markaynu soo noqonana waxaad moodaa in 5% amba 10% oo kaliya ay isticmaalaan, iyada oo badi 90% kalena ay isticmaalaan sanadka miilaadiga. daawade hal qarni kadib dunidu siday ahaan doonto iyo sida ay maanta tahayba Ilaahay unba og. waxa soo socda ma ogaan karayno, waqtiguse waa iskuraya. kaliya maanta ku xisaabtan sanadkaaga aad haysato ee hijriyada, ka faa'iideyso. sanadna waxa uu kuugu imanayaa 355 maalmood, sanadna waxa uu kuugu imanayaa 354 maalmood. daawade waxa aan kaaga tegayaa halku dhiga ah ku dadaal wixii ku anfacaya. waad mahadsan tahay daawashada aad ku daawatay barnaamijkan. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.